سؤال أدق إن نسويدينه وايا مر سؤال أدق إن نسويدينه أو أي تهاي محاكينا يدل كنقول دقنو كينيا إنه تاجينها هاي ماشي وتاجينها محاكينا يشريطه إن مدحوينه إن اللوجو يري دل كجيبوتي السجا يتمان مدحوينه ياشيا جيس كأفريقيا ودل كولاله هنا وشرفت له جيبوتي أي صوت بندقان إن أي billions of dollars أي جليين وحلة هذا free zone ويربين إنه تصان مدحوينه ياشي أفريقيا وبول كجام وجوري مدحوينه إنه كجري مدحوينه السودان وكجري وزراء إثيوبيا وكجري محاكيني إن دلالك الدرس كأنها أي علم دوفينيان معها بضيعه إن يدك كذا إنتي وحبران الدنيا دوفينيان محاكينا أرضي والباقي صوت صاران إنه كوا إنك كوا لتبديه شغالها أي هيستان إنه كوا ندامان نقاله هذو أي كون جبارمان أما كبلاي جبارمان iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysan ay ka yar yihiin maxaa keenay in qof walba dawladaha dariska markuu diyaarad raaco oo dunida tagaayo loola dhaqmo si idinka duwan oo idinka sida leeyna dhaqmo annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale maxaa keenay إن اللي يرده إنه يدومها راعان يبدأ كل عام أما أن كسر ضلنا جالش إن لقيته حليو كود أنا ميل هذا اللي أنتوا ده بدنا يجوعان سؤالها للربين ليس ويدي حالة ده عن إدين شيء جاي أو أتربطان إن هذا سوي ديسان هذا ربطان كوي مستقبل كدل كان حكوم لها إن هذا سوي ديسان ويمو دلك قديسة محاكيني إن عند الحاج كان هاي مستقبل كومد الصومالية محاكيني إن أنت نبضن أن قف عادية نقولنا قف عادية من نقول كرتين قف عادية وحن نقول كرا قف دلكي سهر عمري قف عادية وحي تاي قف صبح السوق على سوى شقي استساحة يا صوها الله ينصدق أنت سكلا هذا قف عادية نقول محاكيني إن أقبلنا إن فيرسنا إن عرورتنا مويوين كنا ما بهن جدت كمرك اللي نقول الله يو شليه أمير هذا عاو قف بالوجود ليه وده مكة المكرمة مكاران قف معها هو يسوع ماليه ده أفر عرورة لا يلدري والجامعة تصوب بحي ولا باتنا مصدنا ما فرتن سنة دون ولا لا هيدا كان لسه لا يلدري ساميه سومالي وهرين لا حركة تجلها يلدري دختر كي مستقبل كسومالي ونكسنا لا يلدري محان سيدا سودي وين maxaanu aqbalnaa markaan u jeedno dawladnimadeena oo dariiq sax ah ku socoto qolo yar inay ka leexinayso maxaanu aqbalnaa idinku inaad tihiin qoladii loo isticmaali lahaa inay leexiso idinku intaad ahaan lahaydeen milkiilayaashii qaranka maalinba waxaa la idin keenaa shay laga hadlo shaygaasaad wax ku darsataan waxaad qayb ka noqoteen dhaqanka fadhi ku dirirka oo aan ahayn dhaqanka shaqeeya waxaad qayb ka tihiin dhaqankii la soo dhaafay oo la rabo in la bedelo dawladnimadu waxay tahay waxaanaad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dawladnimadu waxay tahay su'aalaha aad adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dawladnimadu waxay tahay gudoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay waxaan la dhisay idinkaa la idiin dhisay aniga iyo isaga iyo qadiijo waan ka soconnaa haddii lagu ciyaaraayo idinkaa la idinkaga ciyaaraya hadday hagaagaan idinkay idiin hagaagayaan hadafka dawladnimada marka
haddii aad ka shaqaynaysaan waa laydin tilmaamaya waa fududya kow waxay tahay in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhagaysto si loo dhagaysto waa in milkiilayaasha ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulan tihiin si qarannimo ah waa inaad u abaabulan tihiin si mustaqbalka ku salaysan waa inaad u abaabulan tihiin si aad madaxweyne farmaajo u dhihi kartaan dariiqa dalka aad ku hogaaminayso waa khalada bidix u leexi waa inaad abaabulan tihiin qaab aad wasiirada dowladda ku jira aad ula xisaabtami kartaan si halkaas uu soo gaaro marka waxaan idinku caawinaynaa inaan waddankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan waxaan ka shaqaynaynaa in awooddii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka laydin soo celiyo laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka inay idin siiyaan miyaa u malaynaysaan in macno daro laydinkugu keenayo maya waa inaad hurdada ka kacdaan oo aad dowladnimo isu abaabushaan muxuu idinkaga dhintay allah u naxariistee wiilka dhalinyarada ee degmada Wardhigley u qiiminayay dadka masaakiinta Afrika haddii aadan qiimeynaynin noloshiina maxaa dhalinyaro ka tihiin haddii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dowladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay aadan ula xisaabtamaynin haliyay idinka baxay sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan وان قبيلك لغو بدلا أصحاب سياسة وان عضدك أي بحيان شعبك صوماليو دون وان دالكوردن لغا عضيا وان دولة أي حق كنت شعبك صوماليات لكينا وان مدحدا مستقبلك أي كوي مادان مستقبل كرابطان كشعبك صوماليات وان إذنك أود آيالتان سيئات ويالتان انت لغا شقين آي شقوين كاس وجيد كيدا لغو جرو وان أبرددك توصان الدنيا waxay noola dhaqantaa sida hore si ka duwan meel walbo aan tagno waana la ciseeyaa waxaana loo ciseeyaa inaan ahayn dawlad wax loo yeeriyo nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annaga go'aansana go'aanka aan ummadda Soomaaliyeed u gaarayna isgoyska aan marayno marka waxaan rabaa dhalinyaro inaan caawa mar kale idinku soo celiyo ما لقى شقين كره هدي إنديه نحرين ما لقى شقين كره هداتين ويلل إيه قبل عادية ما لقى شقين كره هدياتين ويلل إيه قبل دحات كه مستقبل كومة الصومالية ما لقى شقين كره هداتين كوا ولا دنجارة لا فيسبوك كهتان ما لقى شقين كره هديات ليدين أركتكوبان وهذا الله هينين أركتفوك ما لقى شقين كره هدادا فهمننا صدن سنة نقفلا إن أنا قبيالة وحترين ما لقى شقين كره هدي